kadib xilka qaadistii maalintii shalay ay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Khaatumo ay xilka kaga qaadeen madaxweynihii hore maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyd ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood waxay soo dhaweeyeen xilka qaadistaasi iyagoona ugu hambalyeeyay baarlamaanka Khaatumo sida wanaagsan ay ugu hiliyeen shacabka deegaanadooda waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood oo ka hadlaya arrimahaasi xilka qaadistii taariikhiga ah ee shalay ka dhacday gobolka Cayn gaar ahaan caasimadiisa Buuhoodle aad baan u soo dhaweynaynaa baarlamaankii kulanka emergency-ga ku yeeshay xilka xayuunta ku sameeyay mudane Cali Khaliif waayo Cali Khaliif cadaaladiisa waa ninka kaysay oo kala hiilinaya ya Cabdi Cagalule kaysay wixii Buuhoodle weeraraya wax boloshiisa kama bixin Cabdi Cagalule wixii xilka xayuunta lagu sameeyo shacabku waxa uu leenahay Cali Khaliif iyo Cagalule cadaalada dawaadreemis marka waxaan leenahay waa soo dhaweynaa talaabada daawnahay dadka deegan gobolka Soomaaliya waa soo dhaweynaa waxaan halkan waxa weeyaan hambaliye iyo bogaadin uga direeyaa baarlamaanka dawlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya kuwa soo sameeyay talaabo fiican oo dan u ah shacabka reer Khaatumo kadib markii ay ka qaadeen xilkii madaxweynihii hore ee Khaatumo Cali Khaliif Galeyd kaas oo waxa weeyaan hanayn kari waayo hogaaminta dadkan iyo kalsoonidoodaba waxaad ogtihiin Cali Khaliif Galeyd maalintii uu ku soo biiray masiirka iyo talada ummadda reer Khaatumo waxa weeyaan deegaanadooda si faraha uga sii baxayeen maalin walba tuu tagaa inay waxa weeyaan ay la wareegayeen Soomaaliland ama cid kale la wareegayeen waxaanu leenahay anagoo haddaanu nahay shacabka reer Laascaanood waxaanu aad u soo dhaweynaynaa talaabada wanaagsan ee ay qaadeen baarlamaanku sidoo kale waxaanu hambalyeeynaa waxa weeyaan madaxweynaha sihayaha madaxweynaha Cabdi Cagalule أنا أركع حلقة قادسة وكسمي عقله ومدعوني مستقبلك وأنا سود ويننا وحاولنا وأن دنيرة وأنها الكرة وأن واحد بدن قبطي وأن تلكيسي وحقوق قبطي تلك خاطون وحاولنا يكسود وحوي نكاس وأن واحد الكرة لكن وضع على خلف قريب وأن مستون هذه بس حولها مستون مردلة ninkaas waxa weeye nin la isku haleyn karo Khaatumo masiirkeeda hayn kara maaha annagu ah dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood waxaan iska taageernaa madaxweynaha cusub Cabdi Cagalule taas oo baryahanba uu Cali Khaliif Galeyd ku waday maamulkii loo dhiibay taladiisa taasoo imika keentay inuu Cali hoggaan xumo iyo nidaam xumo ku soo kordhiyo maamulkii waxaan hadaan dhalinyarada reer Laascaanood reer Khaatumo aad iyo aad u taageernaa madaxweynaha hore ahna hadda siyaaya madaxweyne waxaan leenahay soo dhaw madaxweyne waxaan leenahay reer Khaatumo wartashada madaxweynaha cusub soo dhaweeya maanta waxaan balyeynaya waa maalin taariikhiya waa maalin gashay taariikhda adduunka ama dawladaha sidii macnaha waxba ku dayatay Khaatumo dawladii Puntland ee sida cad dawladda u riday waxa dhacay cadaalad waxa dhacday kalsooni waxa dhacday isku tiirsanaan waxa dhacday midnimo Khaatumo maanta muuqato iftiintay waa qorax soo baxday dad baa waxa ka shaqeeya markay danta ummadda ay loo dhaqaaqo reer hebel baa la doortay iyo reer hebel baa halkan laga soo yeeriday waa reer maanta ma jiraan masiirkii ummadda baanta la raadinaya war ma aha reerina Cagalule oo in Khaatumo u gowracan waxaan leenahay ham guulaysato ham midowdo madasha wada hadalkana waa mid loo siman yahay qarannimada ummadda Soomaaliyeed ta Somaliland ta Khaatumo meel baan isugu wada imanaa diyaalidmo taali kursiga Cali Saaka uu waayay hay'adda xagga baashu deemda waxaad moodaa shalay xilka qaadid Cali Khalifa iscaasilaada inka leeyado irro waxaad moodaa kursiga Cali Khaliif inuu macaa baarlamaanka Somaliland ودلكي dadka u hayo umada reer lumahantay masiirkoodii in halka ma ka soo cagaaray waxaan soo dhaweynaa taariikhda 22 ku talaabsaday ninkii Cabdi Cagalule xilka qaadisan ay sameeyeen baarlamaanka maamulka Khaatumo kaas oo ay xilkii kaga xayuubiyeen madaxweyne Cali Khaliif Galeyd ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweyneedkii maamulkaasi ay gabagaba tahay Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascaanood